wardegdega qaraxyo waaweyn ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan controlka laga galo garoonka magaalada Muqdisho ee caasimada oo ku yaalo ku agdhow yahay hotelka caanka ah ee Hotel Afrique dagaal ayaa ka dhac socda gudihiisa lama garanayo kooxaha inay gudaha u galeen iyo banaanka dagaalamayaan laakiin waxa meeshaasi degan hotelkaasi siyaasiyiin aad u fara badan oo caan ah oo u badan wali mucaaradka dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa degan odayaasha dhaqameedyada waxa degan jarnaalo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qarax koowaad ayaa markii hore lagu furay dagaalka haatan ka socda meesha kadibna qarax labaad ayaa dhacay mid saddexaad ayaa dhacay rasaas ayaana ka socotay gudaha warar aan xaqiijin ayaa sheegaya in hotelka uu ku jiro jarnaalka lagu magacaabo laba af leh oo ah sargaal ka tirsan guutada saddexaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee ka dagaalanta gobolka Shabeellaha Hoose sargaalka galay booska jarnaalkii geeriyooday ee Goobale la oran jiray ka soo jeeda gobolada dhexe Soomaaliya ayuu booskiisa galay ninkaasi ayaa la sheegay ciidamadiisa inay ka dhex dagaalamayaan gudaha meesha lagu magacaabo Hotel Afrique dhanka waxa la sheegay inaysan xabada ka socon gudaha Hotel Afrique ka socoto banaankeeda sar dhismo ku agdhow laakiin warar sugan ilaa haatan ma soo bixin laakiin waxa idin xaqiijinayna in qaraxyo ay dhaceen dagaalna uu ka socdo meeshaasi sidoo kale war hadda soo gaaraya sheegay ciidamada xaram cadda iyo taliyahooda Farxan Qaroole ay haatan meesha gaareen lagana yaabo inay soo afjaraan kooxda meesha qabsatay ee weerarka ku galay hotelka Afrique ee magaalada Muqdisho hotelkan waxa uu ku yaalaa ex control iyo wuxuu u dhaxeeyaa garoonka Aadan Cabdulle Cismaan ee magaaladaasi Muqdisho waana afaafka hore ee controlka laga galo ama sahal terminal actis ayuu u dhow yahay waana hotel caan ah dadka magaalada Muqdisho ay wada yaqaanaan wixii warar ay ku soo kordho qaraxyadaasi iyo rasaasta ka socota hotelkaasi halkan ayaad kala socon doontaa waa Maxamed Alfa salaamullaahi calaykum